بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa daawadayaasha meel kastoo joogtaan inuu inaga dhigo kuwii cibaadadooda la aqbalo noocyadeeda kala duwan waa kolley waa meel barwaaqo ah waddankeeniya roobkuna waa inoo da'aya ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa kolley waa yar jimicsanaynoo socodkiibuu ahaa waxaan yar baraarujin lahaa uun qofka muslimka ah markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waxau idhi almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allaahi min almu'min adaciif qofka mu'minka ah ee qawiga ah ayaa ilaahay uu ka jecel yahay ka mu'minka ee daciifka ah labadoodubana waa khayr oo khayr baa ku sugan labadoodaba marka quwaddaasi culimmadu markay sharxayaan waxay leeyihiin waa quwad xagga ruuxda ah iyo quwad xagga jidhka ah labadaba way noqonaysaa quwadda xagga ruuxda ah baa qiimo badan oo aataynu ku dadaalayno waa quwadda xagga iimaanka xagga macnaa caqiidada iyo cibaadada iyo xagga cilmiga taasi wax loo dhigaa ma jiro waa taqaayada ah aynu u soconno qofka in caqiidadiisa iyo cibaadadiisuba dhisan tahay quwada waxa iyadana wasiilo noqonaysa oo taa ina gaadhsiinaysa quwada badaniga ah ama quwadii qofka in jidhkiisu dhisan yahay saa daraaddeed ayaa islaamkeennu wuxuu dhiiri gelinayaa inuu qofka muslimka ahi ku dadaalo caafimaadka jidhkiisa si uu wasiilo ugu noqdo oo cibaadadii dhadhan iyo awood ugu helo marka waxaynu xusuusannahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhinacyo badan buu tusaale inoogu ahaa waxyaabuu tusaalaha inoogu ahaa waxaa ka mid ah caafimaadka waxaa ka mid ahaa cibaadada quramaha ee caafimaadka ka mid ahaa saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka qaybgeli jiray tartankii xagga marka la eego legdanka oo maalin maalmaha ka mida nin rukaanata ibnu yaziid ibnu rukaana la yidhaahdo ayuu nebigu uhi ma legdannaa ma adigaynu legdannaa buu hi haa waa intaan la soo dirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam 3 jeer bay ninkii legdameenoo 3dii jeerba dhulku dhigay 3 neef oo adhiyahoo sharad ahaana wuu ka qaatay waa intii aan sharadka la xaaraantinimaynin waxaynu uga jeednaa markii dambe adugu ninkii 3dii neefna wuu celiyey ninkii wuxuu yidhi waxay taasi sabab iigu noqotay inaan islaamo oo waxaan gartay maadaama aan ahaa ninkii quraysh ugu xoog badnaa aan cidi legdi jirin in ninkan la weheliyo oo awooduu leeyahay aanu igu legdin waxaynu ogsoonnahay tartanka orodku ka qayb geli jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo xaaskiisii caaisha waa kii lahaa aan beratanno 2 jeer baa colkoo safar ku jira ayaa uu caaisha ku yidhi haabay tidhi oo iyadaa ka dheeraysay doorkii hore doorkii labaad ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu colki yidhi 2 jeer buu colku odhanaya hore u sii socda si aan xaaskiisiiyo dee orodkeeda loo arag markay cidla iska helaan baa dabeedna ay tartamayaan doorkii labaad buu haddana isagu ka dheereeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasaa nebigu waxa uu ku yidhi tilka bitilka tii hore ayaad u dhigaysaa tan maanta doorkii hore adaa iga dheereeyey doorkanna anaa kaa dheereeyey marka taasi waxay tusaale u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tartanadaa ka qaybgeli jiray tartanka gaadiidku ka qaybgeli jiray iyo maaragtay dhiiri gelin jirayna oo asxaabta uu ku dhiiri gelin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxaynu baraarujin lahaynu 2 arrimood qofka muslimka ahi ma aha mid ku dadaalo inuu jidhkiisa dhiso sidaynu aragnay dhallinyarada qaarkood waxaan arkayey qolyo dhallinyaradeenna ka mid ahoo soo sawiraya jidhkooda iyo siday u dhiseen oo isqaawiyeyba taasi sax maaha waa arrin qalada weeye inuu qofku isqaawiyaa sax maaha oo had iyo jeer markaa qofku jidhkiisa uu dhisaya ama riyaadada waxaan la yidhaahda iyo uu gelayo waxaa shuruuday leedahay shuruudaheeda waxaa ka mid ah in cawrada aan la bannaynin in cawrada la banneeya ceeb weeye raggana ceeb bay ku tahay dumarkana ceeb bay ku tahay markaa intuu qofkii cawradii banneeyo in maansha alla loo soo qoro ceebtii baa lagu dhiiri gelinaya arrintaa in la joojiyo weeye iliyo inkaar baaba jirto dee jidhkiisa qaar baa cawri karo hadhowbu ayuu dareemi karaa dhibaatadaas inaan rag iyo dumarku isdhex gelinna waa shardi marka had iyo jeer arrintaasoo kale ay tahay waxaa shardiya in cibaadada aanay kaa mashquulinin oo dee cibaadaduna waa hadafkii aynu u noolayn riyaadada waxaan la idhaahda iyo musaabaqadaas ama tartanka noocaasoo kale ahi waa inaanu khatar keenin
haddii khatari ay ku imanayso jidhkaaga sida dee aynu aragnay gaalada ay mararka qaarkood dee qofka naftiisiiba khatar gelayso sax maaha waa inaan khatar la gelinin sidoo kale xayawaankaa la isku diraa oo dadku ay daawadaan marka shuruudahaasaa jira markay tahay mid haddaba hufan waa laga maarmaan marka qofkii inuu jidhkiisii dhiso oo uu ruuxdiisii dhiso labadaba innagaa u baahan ma aha qofku qof jidhkiisoo qura ku dadaalaya qof jidhkiina dayacay ruuxdiina dayacayna ma aha laakiin waa in labadiisuba dhisnaadaanoo waxaynu doonaynaa almu'minu alqawiy sidaa nebigu uu sheegay haddaad qur-aanka kariimka akhrido waxaad arkaysaa qisadii ninkii daaluud la odhan jiray boqorkii reer banu israa'iil waxa lagu doorto qur-aanku uu tilmaamay wazaadahu basdatan fi alcilmi waaljismi waxa uu leeyahay awood xagga jidhka ah iyo aqoon xagga dagaalka ah marka awood iyo aqoon labadaasaa lagu doortay marka xaqiiqatan dee waxaynu qisooyinku aad iyo aad bay u badan yihiin waxaynu soo koobi karna maaha markaa qofka muslimkii maaha kawma min ashaxmi kuus xaydhoo meel iska fadhiya maaha waa qof siduu cibaadadiisii riyaado ugu helo awood ugu helo macaan ugu helo caafimaadkiisana wuu danaynaya ila nebigu wuxuu uhi inna lijasadika calayka xaqan jidhkaaga xil baa kaa saaranoo xaq buu kugu leeyay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka awalan ruuxdaynu danaynaynaa iyo awoodday leedahay caafimaadka jidhkeennana waynu danaynaynaa markaa sidaasaynu kelmaddan ugu qaadannay maanta aynu baraarujinayno inuu qofku ku dadaalo dhaqdhaqaaqa qofka muslimka ah oo kolba wixii uu kari karaya hadday soco tahay iyo haddii ay tahay orodkii iyo haddii ay tahay dhismihii kale jidhkiisa uu dhisayay intaasaynu galabta baraarujin lahayn anigu runtii ma ihi hawlahaasaan maaragtay nin ku fiicanahay ma ihi galabta inkastoon dee jimicsanayna oo rabadaanba ha ahaatee aan iska soconaynay haddana waa arrin u baahan inay dadku ku baraarugaan oo dadka qaarkoodna waxay ku sameeyaan khuluwiyo waxay aaminsan yihiin wixii oo dhammiba in la soo xidhay oo qofku halkiisa uu iska fadhiyo dadka qaarkoodna waxay aaminsan inay gaalada ku daydaanoo muruqyadu la dhiso macno kale aan la keenin labadaa qolaa loo dhaxaynayaa qofkii jidhkiisiina waa inuu dhisaa ruuxdiisiina waa inuu dhisaa markaa xadgudubna male gawadfalna male nebigeennaana meel walba tusaale wanaagsan inoogu ah ilaahay waxaan ka baryayaa idinka iyo aniga iyo innagaba inuu cudurradaas laga cabsi qabanay naga badbaadiyo cibaadadeennana uu aqbalo cisi iyo sharafna uuna siiyo sidaasaynu ilaahay ka baryaynaa jannadana ilaahay uu nagu casuumo cadaabkiisana inaga badbaadiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana idiin soo ducaynaynaa idinkuna waa idinnoo soo ducayn wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu